السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiinba waqti wanaagsan saaxiibayaal. Maanta waxaan doonayaa inaan guda galo barnaamijkii aan shalayto idin la wadaagay ee ahaa inaan dhaqanka Soomaaliyeed waxyaabo fara badan aan halkan ku soo gudbin doono ku saabsan marka la fiiriyo marka dadkani waxay rama badna waa hal qof laakiin hal qof baa wuxuu noo yahay dad aad u fara badan. Waxaan la daawatay laba qof waan ka sii rajaynaynaa in dad kale fara badan ay xagga ku soo xirmi doonaan kala faa'iido doonaan waxyaaba aan halkaas soo kulino. Saaxiibayaal waxaan doonayaa marka inaan barnaamijkeena guda galo arrimo badan oo ku saabsan aan halkan ka sii faaqiyo doono insha Allah. Dhaqanka Soomaaliyeed marka la fiiriyo wuu fara badan yahay mana la soo koobi karo qaybihiisa kala duwan. Laakiin waxaan doonayaa qayb yar oo kamid ah inaan horto aan diirada saaro ay mahmaahda. Mahmaahdu waxay kamid tahay waxyaaba dhaqanka Soomaaliyeed ay dadku u leeyihiin isla markaana aad iyo aad loo qiimeeyo. Marka meesha aan rabo mahmaahda inaan maama hebel ajartay iyo waxaas idin sheego muusuf risaalkan. Laakiin waxaan rabaa inaan idin la wadaago mahmaahda waxa ay ku timiday. Hadba waxa la mahmaahdu waxa ay ku timiday oo la yaqaano oo hadba gobolada kala duwan wax baa loo yaqaanaa dhacdaasi u dhacday si kala dadku yaqaanaan bas. Marka waxaan rajaynayaa in hadba midii asla yahay tan baa dadku wada garanayaan inaan soo gudbi doono. Dhacdada mahmaahda iyo dhacdada baa la barnaamijka marka. Mahmaahda iyo dhacdadu waa waxa ay ku timiday mahmaahdu. Marka mahmaahda ayaan sheegay kadibna waxa ay ku timiday oo dhameystiran ayaan guda galayaa. Mahmaahda koobaad oo aynu soo qaadan doono waa mahmaahda la yiraahdo baroortu orgiga ka weyn. Waa mahmaah caan ah dadka Soomaaliyeed aad u yaqaan meel kasta oo ay joogaan maxaladahay laga adeegsado. Marka koobaad mahmaahda horta waxa loo adeegsadaa meelo kala duwan oo aan haldahay mahmaahda la yiraahdo baroortu orgiga ka weyn. Marka waxaan rabaa in aan guda galo hadba meesha ay ka imaatay. Waxa jirtay baa la yiraahdaa wiil iyo gabar hasaabo ka dhaxeeyay ama maxalada jacayl ka dhaxeeyay ama shukaansi ku dhaxeeyay hadba qof soo yaqaano in badan isla socday. Termina aha termigu marka waxa ay caado u ah in reerku hadba meeshii xooluhu ay taaqeelayaan ay aadaan. Labadii reer diris bay ahaayeen wiilkii gabartuna xagga bay maxaa la yiraahdaa in badan hasaawadu ka jiray. Waxa dhacday abaar waa la kala guuray gabadhiina reerkooda dhinac buu guuray wiilkeena dhinac buu guuray. Marka xagga bay baasho ka bilaabatay gabadhii bow maxaa la yiraahdaa hadba waxa la arkay iyadoo si ah maxaa la yiraahdaa aanan maxaa xoolihiisa fiican u daajinaynin ayda dhan maxaa la muruka muuqato. Marka habeen is xiri weyso marka wiilkii meel fog buu jiraa telefoon ma jiro xilligaas maxaa la yiraahdaa internet ma jiro waxtaas ma jiraan hadda baadiye xitaa waxa waa internet ba tagay. Marka habeenada kamid ah marka gabadhii oo aabihii baa iyadoo oynayso baa marka buu baroonayso oo oynayso baa aabihii baa marka aabihii marka wuxuu yiri ma war maxaa ku dhacay gabadheedii waxay tiri marka aabo orgigeeni ma taqaana oo urka ahaayay oo maxaa la yiraahdaa weynaayay oo maxaa la yiraahdaa baal ku cunay ayaa maxaa la yiraahdaa aan oynayaa oo maxaa la yiraahdaa murugtiisa baan la oynayaa oo maskaxdeeda ku soo dhacay mar walba. Odigii marka saab u fiirshay gabadhii markaas uu yiri baroortu orgiga ka weyn wax kala ku qarsanay wax kala ku qarsan baa sheeg baroortu orgiga ka weyn. Marka aabuhu wuxuu ogaaday in aysan u oynaynin gabadhu maxaa la yiraahdaa orgigaas ay jiraan wax ka weyn oo meesha yaalo. Marka wuxuu dhahay baroortu orgiga weyn. Marka mahmaahdaasi waxa ay noo sheegaysaa waxyaabo fara badan oo meelo kala duwan oo baa loo adeegsadaa. Umar maxaa la yiraahdaa dadka caadiga ah ba adeegsado adeegaan leeyahay siyaasadda ba adeegsata dadba meel baa adeegsadaan. Marka mahmaahdaas ayaan maanta ku soo qaadanay barnaamijkeena taxana ayuu noo ahaan doonaa oo barnaamijku waxa la yiraahdaa mahmaahda iyo dhacdada. Marka xagga baan ku sii socotaa insha Allah. Waad mahadsantiin soo dhawaada hal qof baan la joogo laba fiisno in daawatay ama laba qof in daawatay dirito waxaan rajaynayaa saddex iyo ka sii badan ama laba aad soo noqoto insha Allah. Marka soo dhawaada dhammaantiinba.